Gabadhan waa gabar faqiirad ah. Magaceedu waxaa la yiraahdaa Shema. Shema waa agoon mana laha hooyo iyo aabbo, mana haysata meel ay seexato. Maalin maalmaha ka mid ah ayay aad u gaajasnayd. Waxay u soo baxday si ay cunto uga raadsato qashinka, sababtoo ah wax lacag ma haysato. Laakiin nasiib darro meeshii cunto waa ay ka weysay. waxay aragtay dukaan la weyn aaday waxayna ku tiri adeer waxaan cuno ma haysaa, waan gaajoonayaa, wax lacagana ma haysto. Ninkii wuxuu ku yiri halkan ka tag, waxaad tahay faqiir, aniguna masaakiinta waxba ma siiyo. Hataadan wajigayga ka hor dhaqaaqin waxaan kugu wacayaa booliska. Waa ay ka soo tagtay iyada oo niyad jabsan, waxayna soo fariisatay wadada. Isla waqtigaas waxaa meesha taagnaa wiil dhalinyaro ah, wuxuuna cunayay sandwich. Ninkii dukaanlaha ayaa gabadhii wuxuu ku dhahay, gabadhan maxay saan uga eg tahay, nolosheeda ay wax ugu qabsan la'san tahay. Yarada ahaa ayaa wuxuu la yaabay gabadhii, waxa uuna ku dhahay, jab sandwich ma rabtaa? Waxay ku dhahday haa. Wuxuu dhulka ugu soo tuuray jabkii sandwich-ka ahaa sida ayda oo kale. Ninkii dukaanlaha ah wuxuu bilaabay inuu ku qoslo gabadhii uuna ku jeesjeeso. Wuxuu ninkii ag taagnaa ku dhahay fiiri siday u cunayso. Gabadhii yareed waxay dareentay xishood iyo yaxyax, madaxeedii ayayna hoos aadisay. Markii uu wiilkii dhalinyarada ahaa baxay, ninkii dukaanlaha ahaa ayaa wuxuu gabadhii ku dhahay, cunug yahay faqiirada ama rabtaa cunto. Wuxuu jab rooti ugu dhex tuuray qashinka dhexdiisa, wuxuuna ku dhahay kaalay oo halkan ku cun. Waa ay soo kacday gaajada haysay awgeed, waa ayna la soo baxday. Isla waqtigaas waxaa meeshii marayay oo arkay gabadhii. Nin meesha ku cusub waa uu la yaabay gabadhan cuntada qashinka kala baxaysa. Gabadhii qashinkii ayay kala soo baxday jabkii rootiga ahaa, ay ku ridatay koofiyadeeda. Ninkii ayaa arkay gabadhan oo cuntada qashinka ka baaranaysa. Ninkii dukaanlaha ahaa ayaa soo dhaweeyay ninkii cusbaa. Wuxuu ku dhahay, waxaan rabaa inaad iga iibiso cunto. Ninkii gabadhii ayuu aad u fiirinayaa isagoo oo ka murugaysan xaaladda ay ku sugan tahay gabadhan yarka. Markii cuntada la siiyay, ninkii wuxuu cuntada u qaaday gabadhii wuxuuna ku dhahay, gabadheedii cuntadan adiga ayaa iska leh, mar dambe ha cunin cuntooyinka qashinka ku jira. Waxay qaadatay cuntadii waxayna bilowday inay cararto. Ninkii wuxuu u wacay gabadhii wuxuuna ku dhahay, kaalay xaggee aadaysaa? Gabadhii ma ayna soo laaban, wayna sii carartay. Ninkii wuxuu u soo laabtay ninkii dukaanlaha ahaa wuxuuna ku dhahay, gabadhan waa gabar miskiin ah. Ninkii dukaanlaha wuu qoslay wuxuuna ku dhahay, tan ma miskiina, waa cunug xun, mana rabta inay nafteeda maarayso. Ninkii oohin ayuu isku celinayaa wuxuuna ku dhahay, ilaah ma ka baqdid, waxaad tahay 28 jir, sidee ayaad u adeegsanaysaa waqtigaaga? Wuxuu kaloo ku dhahay, lacagta cuntada waa meeqa? Wuxuu dhahay waa 10 dirham. Wuxuu soo bixiyay lacagtii waa uuna siiyay. Sidoo kale ninkii wuxuu dhahay 15 dirham qaado, haddii ay mar kale cunto u baahato gabadhan sii inta aynan cunin cuntada qashinka. Ninkii dukaanlaha wuxuu ku dhahay ninkii cusbaa, maxaad ka faa'iidaysaa inaad caawiso gabadhan? Wuxuu ku dhahay, maxaa kaa galay adiga, ajar ayaan alla uga raadsanayaa. Ninkii inta uunan bixin wuxuu ku dhahay, alla ka baq, haddii ay gabadhan wax kale u baahato sii, amaano ayay kugu tahay. Ninkii dukaanlaha ugu dambeyntii amaanadii sidii ayuu ku qaaday. Daawad, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso meeshii gabadhii ay aaday. Gabadhan waxay imaatay qabriga hooyadeed iyada oo dareemaysa dhibaatada ay leedahay hooyo la'aanta. Gabadhan waa ay soo baxday, waxayna u timaaday walaashadka yar si ay u siiso cuntadii ay ninkii ka soo qaadatay. Waxaa hubaala daawade
inuu qof walba dareemayo dhibaatada ay leedahay hooyo la'aanta weynow mise yarow. Hooyo waa lama huraan. Ilaahu hooyooyinkan jannada gee labadan gabdhood haddii uu ninkan cuntada u siin lahayn labadooduba meesha ay ku dhiman lahaayeen maalmo kadib. qisadan aad ay ii saamaysay weynaga ilmisiisay. waxaa maanta caalamka jooga ilmo kuwaan la mid ah oo gaajo u dhimanaya. waxaan idin rajeynayaa inaad saacidi doontiin fuqarada aad waxaad awoodiin aad siin doontiin. fiidiyogan u share gareeya oo gaarsiiya kuwa dhibaatada ku haya ilmaha yar ee hooyadood ka dhimatay si ay ugu waana qaataan. wassalaamu calaykum. أحب الأعمال وأفضلها التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه أن يكفل يتيما من الأيتام، أن يرعاه وأن يحسن إليه.